بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. golaha wasiirada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyagoo cuskanaya awoodahooda dastuuriga ilaalinayana madaxbannaanida dalka waxay qaateen go'aan isla maanta dhaqan galaya oo taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha January sanadka 2026 kaas oo ay ku difaacayaan midnimada wadajirka dhuleed iyo nidaamka dastuuriga dalka. golaha wasiirada iyagoo si taxadar leh u qiimeeyay xaaladihii u dambeeyay isla markaasna isticmaalaya awoodahooda dastuuriga ah waxay buriyeen dhammaan heshiisyadii lala galay dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan hay'adaha maamulka dowladeed kuwa la xiriira iyo kuwa maamul goboleedyada ka jira gudaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. go'aankan wuxuu quseeyaa dhammaan heshiisyada iyo wada shaqaynta ay ku joogeen dekedaha Berbera, Boosaaso iyo Kismaayo. golaha wasiiradu waxay sidoo kale buriyeen dhammaan heshiisyada jira ee u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku jiraan heshiisyada iskaashiga amni iyo difaac ee laba geesoodka ah. go'aankan wuxuu la xiriiraa warbixino iyo cadeymo xooggan oo ku saabsan tillaabooyin gurcan oo lagu dhibaateynayo gobonimada, midnimada qaranka iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. dhammaan falalkan waxay ka soo horjeedaan mabaadi'da gobonimada, faragelin la'aanta iyo ixtiraamka nidaamka dastuuriga ah ee dalka sida ku cad ahdiga qaramada midoobay, ahdiga midowga Afrika, ahdiga ururka iskaashiga dalalka Islaamka iyo ahdiga ururka Jaamacadda Carabta oo dhammaantooda Soomaaliya ay xubin ka tahay. sidoo kale waxay ka soo horjeedaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed oo cadeeyay mowqifkooda ay ku diidan yihiin falalka gurcan ee lagu dhibaateynayo madaxbannaanida iyo wadajirka dalka. sidaa daraaddeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa la farayaa in ay si rasmi u gaarsiiso dowladda isutaga Imaaraadka Carabta go'aanadan kalena shaqayso hirgelintooda iyadoo oo sida oo kale gaarsiinaysa saaxiibada caalamiga ah iyo kuwa gobolka sida midowga Afrika iyo qaramada midoobay isla markaasna cadeynaysa xuquuqda madaxbannaani ee dalka iyo awoodihiisa dastuuriga ah. go'aankan waxay Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ku cadeynaysaa mas'uuliyaddeeda iyo xuquuqdeeda madaxbannaani ee la xiriira dhulkeeda, dekedaheeda, arrimaheeda amniga iyo arrimaheeda dibadda. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ogoshahay iskaashi caalami ah oo ku dhisan is-ixtiraam, aqoonsiga gobonimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya oo mid ah iyo hoggaansanaanta mabaadi'da dastuuriga ah iyo kuwa caalamiga ah. go'aankan waxaa loo qaatay si waafaqsan danta guud ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.